dawladda hoose magaalada Hargeysa ayaa waqti dheeraad ah ugu dartay dadweynaha ay hore ugu baaqday inay xoolaha ka saaraan magaalada Hargeysa gaar ahaan ariga. maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Khadar Axmed Cumar Khadar Nuur oo warbaahinta kula hadlay xarunta dawladda hoose ayaa sheegay in waqti dheeraad ah dawladda hoose ay ku dartay kadib markii ay qiimeysay xaaladda abaareed ee la soo daristay guud ahaan shacabka Somaliland gaar ahaan shacabka caasimadda Hargeysa. waxaana uu sheegay in markii ay go'aamadaasi ay isla eegeen ay isla garteen waqti dheeraad ah lagu daro. waa kan maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa oo faahfaahinaya waqtiga dheeraadka ah ee ay ugu dareen xoolo dhaqatada magaalada Hargeysa. shirkan jaraa'id oo ujeedadiisu tahay muddo kordhinta xilliga ariga laga saarayo magaalada kaas oo hore ay uga soo baxday wareegto hore oo dawladda hoose ka soo baxday muddadii ay ku dhamaanaysayna ay ahayd 17 bisha December 2021 codsi nagaga yimi dadweynaha iyo hooyooyinka reer Hargeysa iyo anagoo tixgelinay codsigooga sidoo kale aanu garwaaqsanay xaaladda iyo duruufaha dhaqaale ee dalkeenu maanta ku jiro iyo duruufaha adag ee xilliga abaarta waxaanu ka aqbalnay codsigii hooyooyinkaas muddo kordhina waxaanu ugu sameynay muddo 4 bilood iyo 15 cisho taas oo ka bilaabmaysa 18 bisha 12aad 2021 kuna eeg 30 bisha afraad 2022 muddada inta leeg waxa loo kordhiyay waxa loogu beegay waa muddo jiilaala waxaanu la sugeynaa insha Allah biidnillaahi kariim waqtiga roobku uu bilaabmi doono oo rajeynayno inuu bisha March inoo bilaabmo si xoolaha iyo ariga loo geeyo miyada waqtiga dhulku barwaaqo noqdo oo ay ugu noolaadaan annaga oo ka duulayna oo ilaalinayna xaaladda iyo duruufaha adag ee ay dalkeenu ku sugan yahay annagoo bulshadeeda la dareena waxaanu mar labaad garanay in aanu sameeyno muddo kordhintaas ujeedadii xoolaha looga saarayay magaaladuna waa cagaarinta caasimadda iyo qurxinta tiina halkeediiba ka sii soconaya hadii la yiraahdo sida daraadeed waxa reeban in xoolaha lagu soo daayo suuqyada iyo wadooyinka waaweyn ee caasimadda qof kasta iyo hooyo kasta oo xoolo haysata waxaan ka codsanaynaa muddada aan u qabanay inay ku haysato ay ku xanaanayso guryaheeda iyo meelaha ka baxsan ee kornayaasha magaalada waxa reeban in muddada lagu arko neef xoolaa suuqyada iyo wadooyinka waaweyn ee faras magaalaha cidda ku soo deysa ee u hogaansami weyda sharciga iyo wareegtada maanta soo baxday xoolahooda waxa la tiigsan doonaa sharciga waxaana laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell in ka badan $126 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal
shabakadda ugu ballaaran geeyiga Somaliland